aase ku horreynay qaar ka tirsan xujayda sanadka soo gudanaya waajibaadka xajka ee haatan ku sugan goobaha barakaysan ee lagu cibaadeysto ee waddanka boqortooyada Sacuudiga ayaa si aad u weyn waxay uga cawdeen qolyihii soo abaabulay ee iyaga garwadeenka u ahaa oo ay sheegeen inay dayaceen oo adeegyadii ay u fidin lahaayeenna sidii ay ku ballameen aanay u oofinin. waxaa haddaba imika ku sugan magaalada barakaysan ee Madiinatul Munawwara wariyahayaga Cabdirashiid Rashka oo isaguna ka mid ah dadka faraha badan leh muslimiinta ee sanadka soo gudanaya waajibaadka xajka waxaanu noo soo diray warbixintan gaarka toddobaadkii tagay ayay ahayd kadib markii aniga iyo xujay Soomaaliyeed aan ka soo boqolnay magaalada London si sanadkan aan uga qayb qaadano xajka 2017 safar dheer kadib ayaa waxaa soo gaarnay magaalada Jidda waxaana sidoo kale ugu soo gudubnay magaalada Madiina oo markii hore noo ahayd halka aan ku naso doono toddobaadyo halkan aan joogi doono. magaalada Madiina ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka barakeysan ee ku yaala caalamka gaar ahaan wadanka Saudi Arabia waxaana ku yaala sidoo kale xarameenka ama masjidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa ku sugan magaalada barakeysan ee Madiina xujay Soomaaliyeed iyo waliba xujay kale oo ayagu ka kala yimid daafaha caalamka si halkan ay ugu cibaadaystaan kadibna ay ugu gudbaan magaalada Makka oo halka xajka oo ka dhacayo. inta ku sugnaa magaalada Madiina ayaa waxa uu kuurgalay si aan u ogaado nolosha iyo waliba farqiga u dhaxeeya xujayda Soomaaliyeed ee ayagu ka yimid wadanka iyo waliba sidoo kale kuwa ayagu ka yimid qurbaha gaar ahaan wadamada Yurub oo ayagu halkan ku sugan. waxaan ku soo arkay magaalada Madiina mar aan booqday halka ee ayagu ku sugan yihiin xujayda dalka ka yimid in noloshu ay ka duwan tahay tii ay ku sugan yihiin kuwa qurbaha ka yimid. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah nolosha iyo waliba farqiga u dhaxeeya qaar ka mid ah xujayda Soomaaliyeed oo ayagu qurbaha ka soo xajiyay iyo waliba kuwa dalka ka yimid. ayaguna sidoo kale kuwa dalka ka yimid ii sheegay in qarashaad badan laga soo qaaday balse ay helin noloshii ay ka filayeen halkan. haddaan nahay xajadii kasoo xajay Hargeysa waad arkaysaa hoteelkan aan ku jirnaa waa kulayl dhididka naga dhacay waad arkaysaa waayo qof walba wax laga soo qaaday lacag ku dhow 4,000 something waayo Djibouti waxa laga soo xashaa $1,600 wixii dadka laga qaadaya dhib ma laha waa inuu dadku helaan service ay qofku waa inuu masalahaan kale marka xaramka la joogo 5 kilomitir meel u dhaweeyaan dadka Yurub ka yimaada meel lacagta ka yaran inta kana waa xaramka dushiisa mushkiladan haysta waxa iyadoo lacagti ka badan iyo aan service la'aan way jirtaa sidaa uu idin sheegay oo kale ayaa la haysata anigu ka fog xaramkii shariifka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo qolkan saaxano oo aad iyo aad u kulul iyo awoodda kuliska bedelay masaajidkii nabiga wuxuu noo jiraa ilaa 500 oo mayl kiiloomitir in ku dhow marka anu waan socon karaa iyo dadka dhalinyarada laakiin ayeeday oo kale imika waxay ku qaadanaysaa time intay sii soconayso soo soconayso marka waxaan leeyahay qoladii markaanu ka yimid Hargeysa waxay yiraahdeen qoladiina soo kaxaynaysa anaga service-ka dhan qaabinayna laakiin markaan halkan nimid maanu arag qofkii isagunba ama ayeeda wad ama hooyada wad qofkii isagunba la silcay ilaa halka geynaya dhibaatada jirta waa taa waxaad moodaa qaabka meesha aan u deganahay iyo in sidii loogu talagalay aysan ahayn hoteelka aan deganahay hotel oo aan isleenahay maxaan ku iraahdaa aad u kulul waaye kulley dhaliishaasaan soo jeedinaynaa in uuna hoteelkii noo qalma ahayn annaga hadda waqtiganagii waa dhammaan rabaaye dadka kaloo naga dambeeyo walaalaha ah waxaan codsanaynaa in meeshan ka wanaagsan la dejiyo. waxaanu deganahay hotel ka soo horjeeda imaka in masaajidkii nabiga oo aad u raaxo leh salaad kasta oo kamidana waxaanu ku tukanaa masjidkii nabiga alayhi salaatu wasalaam. reer Furqaan ilaahay khayr ha siiyo runtii aad iyo aad ayay hawshooda u wanaagsanayd haday noqoto ilaa magaaladii markaan Birmingham ka soo dhoofnay reer Furqaan ilaahay khayr ha siiyo runtii aad iyo aad ayay hawshooda u wanaagsanayd haday noqoto ilaa magaaladii markaan Birmingham ka soo dhoofnay transitka yagii Frankfurt iyo Jiddaba ilaa Madiinaba runtii aad iyo aad bay u wanaagsanayd basaska yagii socodka yagii
alxamdulilah madiino dee hodheel aada u wanaagsan oo aada u weyn oo masjidkana u jira ilaa 3 mirid hadda mar dhoweed waxaa laga maqlayay salaadii adinka salaadii subax ayaa nala dejiyey waa quraac waa casho waa masjid aada u wanaagsan xaqiiqdii aada iyo aad maasha allah aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad iyagana ilaahay khayr ha ka siiyo dhanka kalena waxaanu isku daynay mas-uuliyiintu ayaga mas-uul ka ah xujayda soomaaliyeed ee ka timid dalka waxaanaanu suuragelin inaan hayno maadaama taleefanadooda aan la heli karin intaasi kadib ayaa waxaa la kulnay sheekh maxamed heebe oo asagoo ka mid ah xujayda soomaaliyeed ee sanadkan sidoo kalena ka mid ahaa mas-uuliyiinta hogaaminaysay xujayda soomaaliyeed ee sanadkan soo xajinaysay waxaana sheekh maxamed oo nagu warbixiyey dhibaatada inta badan ee la kulmaan xujayda dalka ka timaada iyo weliba dadka mas-uuliyiinta oo xujaydaasi keenay dhibaatada ay kala kulmaan maalin baa iman doonta nolosha ay gaadhaan meel wacan aakhirana ha ku gubanina dadkaa wadow adduunyadana ha ku ceeboobina ilaahayna subxaana wa tacaala xaaraan iyo suxtaa ka shaqaysanina ee u tudha u naxo haddaydan caawin karayn faraha ka qaada ha joogaan dhulkooda wax laga naco calool xanuun leh calool wareeg leh ilma leh argagax leh ayaa dadkaa ku soo arkaysa adaaba soo duubay oo qaar indhahaaga ku arkay waxa noocaasa qof bila'aadan oo madiino maanta jooga soomaaliya ama nation kale oo dunida ka yimid dunida dadka ugu faqiirsani ma ku jiraan maanta adigoo jaamacad carabi yidhi baan ku jiraa af carabi dadkaagu yaqaano oo muslimiin ay yihiin oo soomaali u shaqaynayso saa u gelayso waar ilaahay subxaana wa tacaala ha laga boqo waar ilaahay ha laga boqo dadka ha loo turo sidoo kale intaan ku sugnaa magaalada madiina ayaa waxaa nasiib u yeeshay inaan ku saandarsado qaar ka mid ah xujayada soomaaliyeed oo ayagoo nasiib u yeeshay inay booqdaan qaar ka mid ah goobaha taariikhda muhiimka ah ku leh diinta islaamka sida masjidka quba iyo masjidka qiblateyn iyo jabal uxud iyo goobo kale oo muhiim ah waxaana xamle ka socota furqaan travel agency marka waxaan nimid maantay oo nimid meesha caanaha geela waxaan nimid halkan geel maasha allah tiro badan caano macaan oo markaas hortaada lagu lisayo sidaa ujeedaana waxaa weye dadku waxyaabaha ay ka sheekeen ama ka hadlaan markay yimaadaan madiina ama maka waxaa ka mid a waxyaabaha cajiibka ay la kulmaan markii ay yimaadaan dadkii oo cibaado u yimid haddana halka caana geela ku haysa Soomaaliya haddaan hayn caanaha geela iyo hilibka geela iyo waxaa dhaqan ahaan baan u leenahay Universal TV halkan noogu yimid Universal TV waa kanaalka kaliya oo daacadda waa kanaalka aan adduunka ugu jecelahay waxyaalaha adduunyada ka dhacaya oo meel walba ka dhacaya ayuu si daacad u sheegaa aniga laftaygu aad baan u jecelahay gurigeyga markaan joogo asagaan daawadaa kanaal kale ma daawado waayo waa kanaal dhexdhexaada halkan aan ku suganahay daawadayaal waa abuurta uxid oo muhiimad weyn ama taariikh weyn ku leh diinta islaamka markay timaado dagaalka weynaa ee ku dhex maray muslimiinta iyo weliba gaalada halkaana ee ka mid ahayd goobaha lagu jibiyey muslimiinta oo dhabarjibin lagu sameeyey maalmaha soo socda ayaa waxaa daawan doontaan barnaamijyo iyo weliba warar kala duwan oo aan ku falaqayn doono buurta uxid taariikhdeeda iyo weliba guud ahaan magaalada madiina cabdirashiid maxamed nuur cabdirashid Universal TV uxid madiinatul munawwara